fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وعن ونكسن صاحب بيال ميل وليبا واد عمان وعالم كجوجتان كسر وهذا ما أنت إياه ورك هو وين سبورتيجا عيارها وحن سوق هذا دونا ورك كوساب سان كحدا إياه كليب سوق عيار توجا ما أنت محاكو صارن سوقا وربحنا كلا أو أدومهم سنة عيارها كوساب سنة ونسوق هذا دونا إياه أخبارات كوم مثلا ما أنت عيارها وحكم إذا نيكي جرد بيلها وصار ما ذي وقت سريال مدريدو تاجرياش مدريد وحيلين يانو كان لوها ماشى عماد ماله هل إسك إيبيو ولي وحنو يجي دونا أخبارات كلو أدو حساب بدن أو كسب سن نيكي مانشستر عياري لوريساني وحقرك وسارين وكبير كحضة باير ميشان ورك جدا بوحكاش يجي دونا أركا إيو ستي وحي قرشين يسمركو ساني كتغو إياري ما كلو مهم بانو يجي دونا أو كسب سن حالة دا كين فاينالكو إيو ولي با أري ما كلو أو أدو ميسانو كوتشيرو ماستر داني ألفيس أو شرط وديغان دونا إني مرء جوجي دونا كوحدة كوبدا عقتها كوحدة هادو كتر سيها بيشي هاديو برشكو لابانا يقضو بكالو أدو حساب بدن أيانو كويجي دونا محو مريا قبا هادي مركلة مرادة لغيردو جوردن كولوب وليبا حالة مدريد جوفنتوس بان وحكاقات المامي دونا مانتا ياري مكالو مهمة أيانو سوق هذا دونا هازاد الله أركين كلكي قدام بيوم كومع سلامين دونا كوحدة تشيلسي فرانكفورت وحكا هذا الشيء حالة دا يوفيك أو كدو إنو كبيرا كوحدة ريال مدريد ميسي أو مركي وهوريس جيري قبانايا صحافة هور إيمانايا كدب عيبتي كل عضي كان سو غارتي كوحدة ليفربول ياري مكالو وهادو حساب بدن أيان كسوق هذا دونا بالمانتو وركي أو فافاسن ويهيو بل وركي أو فهفهسن أيانو مركانو إيجي دونايو أصحاب تميل والعالم كجوجتان وحن ليه جمعة وناكسن رمضان الكريم waxaan idin leeyahay maalin aad u wanaagsan waxaan rabaa inaan idin la socodsiiyo in maalmaha soo socdana aan ku soo dari doono channelkeena muuqaalo kale oo aad u xiiso badan oo yaani aanu ciimamadeyno dadka qaar ee bulshada qaybaheeda kala duwan muuqaalada oo ku saabsanaan doona arrimaha bulshada haday ahaan lahaayeen waxyaabaha ugu muhiimsan ee marka laga baxo sportigu anagu waxaan nahay number 1 waxaan noo ah sporti anagu waxaan nahay reer sporti baan nahayo channelkeena wax ugu muhiimsan xoog ku saari doono waa arrimaha ciyaaraha laakiin waxa jiri doona muuqaalo kale oo aan dhexgelin doono oo ku saabsan waxyaabaha hadba dadku way jecel yihiin isdhihi doono dad waxa jira kab kasta gashanaya anu hadda markaan ciyaar wada kabta ciyaaraha waa gishtaa kabaha kale waa gishtaa la kab siyaasadeedku ma gishto tusaale ahaan oo kale marka entertainment oo kale arrimaha madadaalooyinka waxyaabo waxa jiraan aad ula socdo ciyaaraha oo kale aad way ugu baxdaa waxyaabo waxa jiray anigu wada baxdo oo ka wada helo dad sidoo kale waxa jira kab kasta gashanaya yaani muuqaal walbaba yaani ka heli kara yaani la socon kara xaaladiisu marka tusaale ahaan oo kale anigu marka waxaan sameyn doonaa muuqaalo kale oo aad u xiiso badan ayaan ku soo kordhin doonaa channelku laakiin sportigu lama taabtaan waa meeshan isaga cimad ku tuurka ah cimaamadiisu lama haysan karo anagu kamal daari baan ka sheekeynaa sportigan u miisanaan doono channelkiina kan laakiin waxa jiri doona hal muuqaalo oo aan ku dhex cimaamadi doono muuqaalada maalinlaha aan soo gelin doono laakiin waxaan ku sheegayaa muuqaalada waxay noqon doonaan kuwa xiisan laho oo dadka kalena ay ka faa'iideystaan anagu qudhino xataa isaga dhex tuuran karto tusaale ahaan waxa jira dadka qaar aan kab kasta iska gashanaya marka waa yahayo waxaan idin kula socodsiin arka waxay tahay muuqaalada ka markay yimaadaan inaha taagtaagaya ciidamada la iska tuur adiga waxba kab dhanba ha gashanayno yaani maxay tahay maxamed qadar maxaa way hadhiinba isaga tuur ciidamada adiga muuqaalka dadka loo anfacaya waa yahay ويهيو أخبارات كأجوا وين ما أنت عيارها أيانو سوق هذا الدنيا برنامج كنا جرد بيل وحقرك وساري هاي إنه سجبح مدريد نين كان بيل والله جن عي مدريد الله كم هو يهرج اللجنتية مدريد كل حبة يعني اللجنتية كأه مدريدو وني من كسد حج سنة يسكت حاجة شبلي وكل قادو كم ده ماستر بيل بمتو كدلي وضركتين جول هاي كاريوس ليفربول جول كوجو شريه وعلى ما نتي فعلا كم دم بيستحيد لكن هذا مدريد والله جن عي سوا كو يسقي سيدان وإنسان فعين عد لقى قاضي تاجرياش مدريد يستها حتى وحيكون موجين إن بيل وبحط عد لقى قاضي جماهير مدريد وحي سجاشن يكون بقول كبير هذين هل إيبيو halka sagaal boqolkiiba ay yiraahdeen ha joogo taas waxay ka dhigan tahay jamaahirtu Madrid oo dhan waxay rabaan in Bale kooxda ka baxo marka dadka ugu badan 91 boqolkiiba waxay tireen warniga ciidamad ma lahan han naga tago halka kuwa qaar ay yiraahdeen war ha iska joogo lagtaa waxay ka dhigan tahay codka ugu badan wuxuu cadeynayaa ninkan inuu kooxdan sii joogi doonin oo baxayo akhbaraad kale Man City waxa laga yaabaa inay aad ugu badan tahay Sani laga qaadan doono ninkan Saniya keed ayuu diidayayo waxa aad ugu horay ninkan booskiisa wiilka yiraahdo Bernardo Silva oo nin aad u khatar badan
ayaa booskiisa yani booska hore kaga horeeya iyo waliba ninka Mahrez la yiraahdo isaguna xagaga dambe in boos la siiyay noqon doonto sidaas daraadeed Sane inuu baxay u badan tahay oo isagu iyo Guardiola isku kacsiin haddaba Bayern Munchen waxay cadeysay in ay doonayaan ciyaartooyga kan ee Sane haddaba ninka madaxda kooxda kamid ah Hones wuxuu cadeeyay inay rabaan ciyaartooyga kan ee Leroy Sane oo ay ka shaqeynayaan heshiiska ay kula wareegayaan 47 ciyaarood xilli ciyaareedkan tartamada dhan la ciyaaray 30 ciyaar oo kamid ah ayuu ninkan ku soo bilowday safka koowaad waana wiil 26 jiro Germany ah waxa Munchen ka tagay laba nin Qatar ah waa Arjen Robben iyo Frank Ribery labada nin booskooda mid kamid ah inuu cimaamada la doonayo ninkan yacni Sane ah oo booska ka soo bixi karo waxaan ay cadeeyeen Bayern Munchen oo ay xaqiijiyeen in Sane ay rabaan warka waa cad yahay aan marran ku sheegay ninkan Sane il joogi rabto uma eka Warsitio Sane waa sii socda marka Bayern waxay cadeysay arimaha Sane oo ay inay doonayaan in kale waxayna cadeeyeen inay aad u rabaan finalka Champions League waa soo dhow yahay sabtidu bariya sabtida kale waa loo yaabay oo waraajiri doona ama Liverpool ayaa noqon doonta championka Europe ama Tottenham ayaa ku ciidan badan doonta koobka kano oo koobka weyn dhagaweynuhu gacanta ku dhigi doonta haddaba laakiin waxa la isweydiinayaa ma ciyaari karaya keen ciyaarta in kale shaki badan baa ku jira ileen keen uu dhaawacmay ciyaartii Manchester City Fabian Delph dhaawacay laakiin ciyaaraha wixii ka dambeeyay asagu ma ciyaarin Tottenham waxay awoodeen finalku soo gaaraan haddaba tababaraha kooxda Pochettino ayaa cadeeyay in uu aad ugu kalsooni badan yahay ama rajo weyn uu ka qabo inuu finalka ciyaari karo Master Kane Ole Gunnar Solskjaer Manchester tababareedu wuxuu leeyahay sanadka dambe wallahi yan nolod cudur daari karin buu yiri in la imaano xilli ciyaareed kale aad u xun yani Manchester bariyahan waa wareertay waa ka taala waxa weeyaan xilli ciyaareedku dadka kala dhan waa meelay kala galgaleen Man City koobay iska aruursatay maxaa la yiraahdaa labadan waxay joogan Champions League oo Tottenham iyo Liverpool ah laba kale Europe League bay final ka joogan dadku dhan wada cimaamateen dadku dhanba meelabay kala heleen laakiin Manchester wax uu heli kari weeday xataa Champions League ku weeday iyagoo sanad dambe qamiislay noqonaya waxa weeyaan Manchester sanadku sanad xun buu ahaa waxaanu Solskjaer cadeeyay xilli ciyaareedka dambe inaysan Manchester loo cimaamadi doonin haddii ay mar kale guul dareysato cudurdaar ma jiro leeyahay xagaga dambe haddaanu mar kale maradu naga dhaco tababarihii hore Arsenal Arsene Wengerna wuxuu doonayay inuu ciyaaraha dib ugu soo noqdo laakiin ma oga isagu inuu noqon doono tababare iyo inuu maamul noqon doono 69 jirkan ayaa muddo 22 sano wuxuu soo joogay ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxaan uu ahaa ninkii Arsenal la qaaday koobkii unbeaten ka ahaa ee Arsenal la haday ku faanayaan waxaana Wenger uu mar uu la hadlay warbaahintu cadeeyay inuu ku soo noqon doono kubadda cagta maraan dheereen laakiin ma ogi buu leeyahay position kan ka noqon doono ciyaaraha ama inuu tababare noqon doono ama director ama xilal kale kubadda cagta laga qabto inuu noqon doono ninka la yiraahdona Neymar saaxiibkii Dani Alves wuxuu sharad ku dhiganayaa taalada weyn ee Faransiiska Eiffel Tower ayuu sharad ku dhiganay wuxuu leeyahay war taalada baaba sharad baan ku dhiganay wuu taalada taaban sharad ku dhiganaya in Neymar uu sii joogi doono xilli ciyaareedka dambe kooxda kubadda cagta ee Paris Germany war ayaa wuxuu sheegay ninkan inuu ku biiri doono midkood Real Madrid iyo Barcelona laakiin Dani Alves oo saaxiibkiisa wuxuu cadeeyay inaanu midaas shaki ka qabin wuxuu yiri xataa sharad waxaan idin kula galayaa taaladii dheereed ee Faransiiska sharad idin kula galayaa waxaan rumaysanahay buu leeyahay Neymar waa joogaya meel uu Neymar u socdo ma jirto leeyahay arimaha isagoo ka hadlay wuxuu yiri Neymar doonaysa war Madrid uu yiri maalinkaas dadka iska soo wacda Madrid wax wacis iskama dhaafto Madrid dadka dhan iska wada wacata Madrid mar walba dadka iska wacdaayo dad badan bay iska wacaan anu lama yaabo wilmidata laakiin anu haday soo wacaan buu leeyahay anu waxaan dhigi doonaa maya waraya idin mar rabo haday Neymar soo wacan xataa waxaan dhigi doonaa waraya Neymar kuma biirayo suurtagalnimada inuu Neymar ku laaban doono Barcelona isagoo ka hadlay wuxuu yiri aad bay adag taban malayna inuu Neymar ku noqdo Barcelona waxa aad adag maxay dadka Barcelona joogo mar rabaan bay leeyahay Neymar mar rabaan buu leeyahay oo marka ninkan wuxuu qabaa uu ku kala soo yahay Neymar inuu sii joogi doono kooxda PSG ninka la yiraahdo Dani Alves wararka lagu muhiimsan maanta ciyaaraha waxa kamid ah Mourinho wuxuu leeyahay in mar kale Champions League uu lumiyo ninka la yiraahdo Klopp wuxuu leeyahay wax aad u adag oo culays ah waxay noqon doontaa uu yiri wax niyada ka dili doono uu leeyahay Klopp Mourinho wuxuu hadda sida saadalnaya finalka Champions League waxaan ninka Klopp lagu yaqaan inuu yahay nin nasiib daran afar sano Liverpool jooga halka koob xataa ma u qaadin oo xataa FA Cup xataa iska amaliye cup xataa kumin shield xataa uma hayo uma qaadin afar sano kooxda ku sii dhow la jooga ninkan wadana nasiib dar wuxuu ku qabaa finalada Champions League hadda koor waxaan ogeyn 3 gool iyo gool Bayern Munchen ugu qaaday Borussia Dortmund oo isagu watay oo Champions League ay qaaday Bayern Munchen sidoo kale waxaan goobjoog ka ahayn oo ragnay sanadkii waryahay kii sanadkii hore waxa looga qaaday 3 gool iyo gool Madrid baa ka qaaday sidoo kale 2013 Bayern Munchen baa ka qaaday laba final ayuu lumiyay oo Madrid iyo waxa kala qaaday Bayern Munchen waxa uu Mourinho leeyahay hadii koobkan saddexaad markii saddexaad Champions League laga qaado waxay u noqon doontaa uu leeyahay Klopp guul daro weyn
يعني aad bay u muraajibin doontaa uu leeyahay maradiisu ma ceshnaan doonto uu leeyahay saddex Champions League baa laga qaaday saddex final Champions League inta tagtay oo laga qaado ceeb weyn baad ku sugnaan doontaa uu leeyahay kalabow haddii uusan markaan Champions League ku guuleysan waliba markiisii saddexaad waxay noqon doontaa uu wax aad u adag uu leeyahay laakiin waan aqaan uu kolob rajo fiican buu qabay waxaan hubaa inuu mataqaana u fikiri doono siduu ku guuleysan lahaa finalka kanu kadib laba final ka soo qasaaray buu leeyahay laakiin wuxuu yiri mar saddexaad hadii laga qaado kolob marada ka dhacday dhan kale Tottenham oo qaaday Champions League wuxuu ku tilmaamay in Tottenham ay markaa ku guuleysan doonto koobka ugu muhiimsan ee Europe oo dhan kaas oo xataa tilmaamay inay ka muhiimsan yihiin kuwa horyaalada la daldalayo Colombo City ku duraya wuxuu leeyahay waxay ka muhiimsanaan doonaan Champions League ay qaadaan koob kale ee kooxuhu kale ay qaadeen xitaa Mourinho ayaa qaba Hazard inuu isaga tagi doono kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaanu filayaa Mourinho kulanka ugu dambeeyay Hazard inuu ciyaari doono kooxda Chelsea waliba koobku gacanta ka saari doono si uu kooxda ugu qanciyo waxa uu khayaasayaa finalka May 9 dhici doona in Hazard uu noqon doono kulankii ugu dambeeyay Chelsea u ciyaaro waxaanu Hazard isku dayi doonaa in uu la guuleysto leeyahay koobkana gacanta ka saaro Chelsea si ugu macsalaameeyo Madridna ka aado marka Mourinho wuxuu arkaa Hazard inuu yahay kulanka Baku ka dhacaya finalka kiisii ugu dambeeyay Chelsea tababarihii hore xulka kubadda cagta Talyaaniga iyo Juventus Marcelo Lippi ayaa mar kale dib ugu noqday tababarnimada xulka China ee isu diyaarinaya isreebka koobka adduunka ee 2022 dhici doona China ayuu mar kale tababar u noqday macallinkii Talyaaniga Lippi ayaa asagu waxa la ogyahay 5 jeer inuu Serie A la qaaday kooxda Juventus xataa 96 wuxuu qaaday ama uu ku guuleystay Champions League sidoo kale xataa 2006 koobka adduunka uu qaaday wadanka Talyaaniga Marcelo Lippi waxaan uu ahaa tababarihii ugu horeeyay ee ku wada guuleystay koobka adduunka iyo Champions League Frankfurt waxay cadeysay in Jovic uu bixi doono haddaba director kooxda kubadda cagta Frankfurt Faridi Popic wuxuu cadeeyay oo uu qirtay in ay ku dhow yihiin inay aqbalaan kooxdiisu in Lukojovic ay fasaxaan ciyaartoy badan ayaa ka bixi kara kooxdan Frankfurt taas bana cabsi keentay oo Sebastian Haller iyo Ante Rebic baa xitaa ku jir liiska laakiin wuxuu ninka director kooxdu cadeeyay in aysan inay kooxdu isku dayi doonto in ragga qaar ay cishato qaarna ay fasaxdo waxaana xitaa macquul u inaan saddexdooda wada fasaxno wuxuu cadeynayaa ninka marka Frankfurt madaxda u ah in la fasaxi doono oo loo fasixi doono kooxaha doonaya Real Madrid baana qarka u saaran la wareegida ciyaartooyga kan ee lagu magacaabo Luka Jovic marka wuxuu cadeeyay kanu in Jovic ay u fasixi karayaan kooxda Madrid ka hor finalka Copa del Rey Barcelona waxay ka codsatay taageerayaasheedu sinaan isku duubni bay ka codsatay kadibna ay jabki ka soo gaaray Champions League waxaana Barcelona soo qoreen qoraal ah in kooxdu ay in si wada jir loo socdo waxaanu nahay Barca wada jir baynu u baahannahay kahor finalka tartanka dalare oo ay ciyaari doonto kooxda Barcelona waxay Barcelona ku baaqayaan kooxdu inay isku duubni sameeyaan maadaama ay kooxdu aad u niyad jabsan tahay waxaana markii ugu horeeyay tan iyo ka soo haridii Champions League maanta shir jir ay qaban doona Messi iyo Gerard Piqué waana markii ugu horeysay labada kabtan ee kooxdu ay si wada jira wax u qabtaan shir jaraa'ido maanta Jimcaha baa la filayaa ka hor finalka dalare inay shir jir ay qabtaan Messi iyo Piqué waana markii ugu horeysay Messi saxaafadda uu hor imaanayo kadib niyad jabkii soo gaaray aad buu niyad Messi ugu niyad jabay Champions League inay ka soo haraan haddaba maanta waxaa la filayaa in labada shirka jaraa'id ee kooxda Barca ay si wada jir u qabtaan labada nin ee Messi iyo Piqué xitaa shirkan waxaa kala soo qayb gali doona ciyaartooyga lagu magacaabo Sergio Busquets marba haddii saddexdii nin ugu sareeyay kabtanimada kooxdu ay soo fariistaan taa waxay ka dhigan tahay Barcelona u socdaan maanta in taageerayaashu ay niyadda u dhisayaan waxaanay ka hadli doonaan siday finalka darre u doonayaan iyo waxa qorshoodu iyo xagaaga dambe maradan waaba dhacday maanta waxa la warnimayo taageerayaashu waa niyad jabsiin la hadla marka maanta Messi xataa waa la soo diray Piqué idin la hadli doona waxa la hadli doona ninka la yiraahdo Busquets maanta ragga Barca ugu sareeyaba ay shir jiraad wax ka qaban doona wixii war ay ku soo kordhay arrimahooda shirkooda jaraa'idna waan idin soo gudbin doonaa maanta Barcelona niyadjabkii ka soo gaaray Champions League ba ciyaartooygan waaweyn ay u hadlayaan dhan kale Frank de Jong ayaa guri ka helay kooxda magaalada Barcelona durbana wuxuu hadda guri ka sii helay magaalada Barcelona xaqiiqda dambu ka ciyaari doono kooxda Barcelona gadato haddaba saaxiibadiiba waxay cadeysay kiminay in ay mataqaana guri ka sii heleen magaalada Barcelona laakiin mar la weydiiyay hadii dilayd xaaskiisana oo saaxiibadii ah in iyadu ay la soo dagi doonto Barcelona ay sheegtay aad bay u fiicnaan lahayd wiilisa ay u fiicnaan lahayd bay tiri saaxiibaday Anika Moliner inaanu meel wada degno laakiin wali wax kama oga bay leedahay yaani gabdhuhu waa saaxiib wiilashuna waa saaxiib dilayd Jong waa saaxiibo waxay qabtaa in gabadhu saaxiibtana Barcelona la soo degto weyn jeclaan lahaa bay leedahay
kadib markii shalay barshe ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Gorigen ninka da'da yar ee 18 jirka khadka dhexe ka ciyaara ee Lodevig Reis. Gorigen taariikhdu waxaa la ogyahay in laacibiin waaweyn ay soo mareen, waxaa kamid ah Luis Suarez oo 2006 soo maray, Tusandaj oo 2017 soo maray, Delay Blind oo 2010 ka soo baxay, Robin oo soo maray 2002 Virgil van Dijk oo soo maray 2000 ilaa iyo 2010 ilaa 2003. haddana wiilkan baa ka soo baxay kooxda nin ka soo baxa oo aan qatar noqon ma jirto, bal nasiib bacam waan leenahay wiilka Barca la soo wareegtay 18 jirka ah. Kanti rajo weyn baa laga qabaa inuu ciyaari karo finalka Europe League waa kay tababarka si fiican u qaadanaya. dhan kalena Manchester United baa qarka u saaran in kuwan ku garaacaan Barcelona ninka la yiraahdo dilaydo. Manchester waxay isu diyaarinayaan bal leeyahay lacaga fara badan oo ninkan ku soo jiitaan, xataa Man City liiskan ku jirto oo tartanka ku jirto doonaysa booska company ka baxayo in ninkan ay ku soo badashaan. waxa leeyahay labada Manchester ayaa kaga dhow bal leeyahay Barca markan yacni ku garaaci karta ninkan heshiiskiisa. maxay leeyahay Barcelona lacag inay bixiso ma rabto, niman lacag bixinaya meeshan joogo fardhinaya, marka Manchester dagaal adag bay u galaysaa bal dilayid. حتى warar waxa sheegaya Manchester inay doonayso ciyaartooyga Thomas Meunier oo dambeed kamid ugu ciyaara PSG. maxay leeyahay Ben Wasako waa loo diiday inay qaataan. Dani Welbeckna waxa uu doonayay inuu Arsenal u ciyaaro kulkiisa ugu dambeeya Europe League ee finalka, laakiin uu ku soo bilaaban safka koowaad looma maleynayo keed inuu ku soo bilaaban doono baa loo maleynaya. maxay weli fid ma ahan midkan u dhaawac la ah, sanadkan baa ugu dambeeya Arsenal kulkii ugu dambeeya buu ciyaari doona, waana ka tagaya kooxdan. Atletico Madrid macalinkeeda Simeone mushkil weyn baa haysta, xagaagan qayb kamid ah kooxdiisa waa baxayaan, haaf kamid ah kooxdiisa baxaya. tusaale ahaan Griezmann baa baxaya, Godin baa baxaya, Saul baa baxaya, Rodrigo baa baxaya. rag badan baa kooxda ka tagi doona, laakiin waxa uu qorshaysan inuu soo qaato ciyaartooyga Otamendi, Hector Herrera iyo Felix iyo Dybala iyo Cavani, raga oo uu doonay inuu ku badasho booska ka ay baxaya. xitaa Manchester United waxay qiimeynaysaa xaaladda ciyaartooyga Rabiot oo Barcelona ay dooni jirtay oo markaan Barca Dijon ay qaadatay Rabiot way isaga baxday. biishii uu ka soo tagay Rabiot, Manchester baa doonaysa Francisco inay gacanta ku dhigaan berigii uu Fangal kooxdan joogi jiray, xataa way rabeen ninkan, marka Manchester inay qaadan kartaa laga yaaba Rabiot. Roman Abramovich madaxweynaha Chelsea markii ugu horeysay ayuu daawan doona kulan kooxda Chelsea isagoo ka dhex daawan doona garoonka Chelsea ku ciyaarayso, waxaana la filayaa markii ugu horeysay inay noqon doonto muddo sanad ah in ninka Chelsea kale uu kooxdu daawan doono finalka kan ee European League finalkiisu oo dhici doona 9 bishan May. muddo sanad ah kooxdu ciyaariyadu manu daawan, waxaana jiray ninkan in uu arimaha dalku galka Ingiriiska uu bariyahan ku dhibanaayo, fiisaha dalku galka Ingiriiska baa aad ugu dhibadnaa, maxaa yeelay Ingiriiska iyo Ruushka bariyahan dagaal baa ka dhaxeeyo. Ingiriisku xataa manu soo galeen bariyahan kooxdiisu ciyaariyadu ma daawan, laakiin finalka Europe League waxa leeyahay Abramovich wuu daawan doonaa, walibana finalka uu kooxdiisu arki doono qaab ciyaareedkeeda. waxayna noqon doontaa sanad kadib Abramovich inuu kooxda Chelsea daawado ciyaaraheeda, bariyahan uu odag waa mashquulsanaa. Mourinho tababar uma noqon doona leeyahay kooxda Juventus, mana aqbali doono Ronaldo inuu ka aqbalo inuu Juventus yimaado. Ronaldo wuxuu doonayay in Juventus yimaado Mourinho si Champions League loo qaado, laakiin Mourinho iman doona leeyahay Manchester Juventus. maxay yeelay Mourinho lacagaha uu rabo ma ka bixi karto Juventus, tan kalena Mourinho xiriir baa kala dhaxeeya kooxda Inter Milan marka ma doonay Inter cadawgooda inuu tababar u noqdo. Mourinho ayaa 2010 la soo qaaday Inter Milan koobkii caanka ee saddexleyda ahaa, isagoo ku guuleystay FA Cup, isagoo ku guuleystay Coppa Italia, Champions League iyo waliba Serie A. United waxay doonaysaa goolhayaha Milan Donnarumma maadaama heshiiska uu diiday inuu cusboonaysiiyo Master David De Gea, halka Man City uu ka tagi karo Sane. waxaana City doonaysaa in lacago 90 milyan ku gadato Sane, waxaana bedelkiisa doonayaan inay soo qaataan ciyaartooyga Joao Felix oo ah nin reer Portugal oo aad u qatar badan oo loo wada xiiseynayo. sidoo kale City baa doonaysa ciyaaryahano difaac ah oo uu kamid yahay booska Company ninka lagu soo bedeli doono, booska qadka dhexe Fernandinho iyo Rodrigo iyo nin kale u doonayaan. City aad bay isku soo adkeyn doonaan xagaga dambe marka Sane bedelkiisa Felix bay doonayaan.